wadatashi ku aadan xoojinta geedi socodka nabadeed ee magaalada Gaalkacyo oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhalinyarada iyo mas'uuliyiin ka socotay Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Safiya Sheekh Cali ayaa warbixin naga soo dirtay. kulan lagu xoojinayo nabadeynta gobolka Mudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana soo agaasimay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhalinyarada madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka Mudug waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug, General Gorod, waxgarad, guddiga nabadeynta gobolka, dhalinyaro iyo haween. taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa ku dheeraaday dadaalka dowladda Soomaaliya ay gelisay in gobolkaanay bulshada ku dhaqan ay nabad helaan. waxa uu sheegay in qof kasta oo Soomaaliya looga baahan yahay in uu mas'uuliyad iska saaro sida dadka gobolkan wada degan ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen. waxaan u maleynayaa 9 bilood ka hor muddo ku dhow ayaan halkaan imid anoon hadda sidaan u ekayn way ugu yiilay laakiin calaamado kale aan wati dhar military baan qabay ataysan yahay fariinta gaarsii adow gaarsii fariintan oo aan nabad qaata oo heshiiya ayadoo dadku ay qoosteen oo caalamku qoostay oo dadka Soomaaliyeed qoosteen oo aan dareemo dadkan inay heshiinayaan oo ay walaalo yihiin oo aysan kala maarmin qalbiga Ilaahay waa galiyay waa soo qaaday waa keenay adinkana qalbiga Ilaahay waa galiyay. waxgarad, dhalinyaro iyo haweenkii kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida bulshada ku dhaqan gobolka Mudug nabaddu ahmiyadda ugu leedahay ayagoona bogaadiyay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Gaalkacyo iyo guddiga nabadeynta gobolka Mudug. mar haddii aad u adwadii markii hore nooga timid oo waxaan unugtay haddana aad ku laabanaysid haddii dadkii inay soo fiirinayaan sulku wada qalcunaa baalta aan madaxweynaha u geenis wixii jireen adaa laga rabaa haddii alla idmo inaan qofka wax sameynaya dhagar qabaha wax dilaya inuusan cidna uusan shaqo ku lahayn cid u naxayaanaysa jirin. nabaddu waxay u baahan tahay waa suuqiin weeye qofka in la baro horta nabaddu waxay tahay soo taliyuu sheegay wadooyin badan oo la maray leedahay. waxay aad maalinta koowaad intaan xeerka saxeexano maanta fulin inaan u gudubno qofkii ugu horeeyo leen ka dilo qofkii dila soo qabanno inagoo u wada joognan horteena lagu dilo. gudoomiyaha gobolka Mudug Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee dhanka Puntland Maxamed Cumar ee dhankooda ka hadlay kulanka nabadeynta iyo xoojinta bulshada wada degtay ee gobolka Mudug maanta Gaalkacyo lagu qabtay. walkan sidii uu nabad u ahaan lahaa isla markaasna dadkani walaalaha ah ay isku dhexgali lahaayeen horumar ay u gaari lahaayeen nolosha ay u asteyn lahaayeen. nabadda marka laga shaqeynaayo waxay u baahan tahay waqti ka badan waqtiyada dhibaatooyinka la geli waqti ka badan bay u baahan tahay imkaaniyad bay u baahan tahay dulqaad bay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay dawladnimo u baahan tahay. Shaqaale warbaahinta qaranka Soomaaliya.